اسكفوا يا بهاشا من ركن واقف بريا سحر الفوقية ورسكفوا يا بهاشا كفير سما هذا بيت سكور يا قلنا يعني أنت رهين واحد كوبانسان إن أفرتاضي يفرضوا إسكاه الله بيهيم وإحنا كبدنا دراك ومضى أرنتنا هاي دب ضدكنا وديار قروبي سوء السقاح لها كم هدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباس حق اللي والسلام عليكم. عند غدا دارك سوسو. نيكا ولا لودي نيكا صار سلامك بعدي وحالوا بنحيل يا أمد خاتمه وما تلقى سوتي وما قاعد مغنتا هذا نال شغله نال شغله مقع صاروا مقع داروا نال شغله وحالوا بنحيل يا عدونا ومشوا دوري وشنو توقفوا هاي السنة عرض ووحنا وسوق الساقة أنا ويني وحنا عصرنا مقع داروا إنه سوق الساقة هدي وحنا كسر ويني مقع المنطقة عصرنا وحنا كلو عن وين كنادرة وقيسة وحقرنا وماذا إن أهلتها كلنا رؤية مقعة نيكا ودي قبل هلا عبد القادر هذا قبل هلا مسبح جدتك مركي سلاية عندكم تبكي لك الناس شوفه حديد هم لازم كفارهم على نوع الموقاسة وحانوا هاسنا واحد يريد ما نسنا واحد يريد ما نسنا ولياشا أنت وين في الكسراني أنا كان نمشي سير كهر الله سبحانه نمشي سير أصحاب كان أنا كان متكلان لما متكلان المهندس متكلان محمود كلام متكلان مقع كارو متكلانين مقع كارو متكلانين أريد أن يحكمك مقع كارو حلف الكلام قبل الفون عبد القادر ترى احنا وحدك تراويش انا وما انت وحنا تراويش مثلا اليوم waxaan beerta isbuuc waa beer inay suuqyada ku muujiyaan sababtoo ah wixii shalay ascaanood ka dhacay shirkii lagu qabtay dadkii ka hadlay naguma matalaan odayaal naguma matalaan dhalinyaro naguma matalaan haween dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa la yidhahdo maxamuud barine ma jiro waa wax macmalo la samaystay nimana matalaan dadka halkaa ka hadlay waxaana leeyahay dhammaan beesha gobollada degta sool sanaag iyo cayn hadalkii garaad jaamac garaad cali oo uu ka hadlay arrintii isimada ay ka hadleen oo uu yiri dhammaan isimadu iyo garaad cabdilaahi dhammaan isimadu ay ka hadleen ay yidhaahdeen in si degdega hadal waxba qaban maayo waa in dhammaan bulshadu way isugu timaadaa shirkaasoo lagu wada tashanayo baanu annagu halkan ka taageernay shirkaasaan soo dhaweynay aad baanu shirka u soo dhaweynaynaa sababtoo ah inay ummaddan masiirkeeda ka tashato cidina cid ma muquulin karto qori caaraddiis waxba kuma saxmaan biixii iyo tiimkiisa waxaan leeyahay qori caaraddii waxba kuma qaban kartid dadka ma caburin kartid ma khasbi kartid inaad ka daysid gabadfalka iyo waxa aad dadka u geysanaysid ee dhibaatada ah maatada iyo carruurta aad kaga barooranaysid dadkoodu waa kacaynaa waxna nagama hayn kartid dadka waxaan kaloo ardada gobollada sool sanaag iyo cayn degta ka yimi jaamacadaha jigjiga iyo gobollada kale ka yimi jidadka lagu waxyeeleynayo wadooyinka loo istaagayo baabuurta lagala degayo aad baan arrintaas nooga xunnahay in dad ardaya jeelasha hargeysa iyo burco iyo mandheero laga wada bixiyo runtii waa wax maaragtay nasiib darro ah waa wax fool xun waa waxaan islaamnimo iyo maaragtay ummad midna ahayn aad dhammaan waxaan leeyahay gobollada sool sanaag iyo cayn soomaali hadday federaal tahay dadka reer sool sanaag iyo cayn waxa maalin walba ugu laayo calanka buluuga waxaan ka tashan doonaa calanka buluuga inaanu qaadino calanka khaatimo dadweynaha waxaa leeyahay calanka khaatimo qaata sababtoo arrintaa xitaa dowladda federaalka waxooga ka oran weynay dadkii matalaya waxooga ka oran waayeen hadal in lagu wareego maaha dadka waxaan leeyahay in si dhaba masiirkooda uga tashadaan
بارانو كوسو كوريا والسلام يا dadweynaha aad iyo aad u maadsanyihiin dadweynaha sharafta badan oo halka isugu yimi oo shucuurtooda iyo dareenkooda cabiraya dhammaantood qof walba meeshiisu ku salaaman yahay saddex qodob baan anigu ka hadlayaa wax badanna halka waa ka hadlay saddex qodob baan ka hadlayaa mid waxaa la hadlayaa muuse tuuti mid waxaa la hadlayaa soomaali mudaaro mid waxaa la hadlayaa dhulbahanti dadkii 150 ahaa ee uu laascaanood ku leeyay wuxuu yidhi waa 40 qof waa qodobka labaad wuxuu yidhi waxaanu u haynaa 32 qof oo 24 xukuman tahay waxaan u malaynayaa dadkii hadda la qaqabtay oo mudaharaadka lagu qaqabtay baa dembi iyo kiis loo samaynayaa oo xukuman ee dadka horeeya loomana qaban loomana sheegin horta taa ogaada maxkamad baan la keenin cid hore aan loo sheegin dembiilayaal magacyadooda la soo gudbin dadkii haddeer laascaanood laga raafay baa horta dambiilayaal laga dhigayaa horta Soomaali iyo dhulbahante iyo daarood horta taa ogaada waa wuxuu ku fashilmay hore ugu fashilmay waa qodobka Muuse Biixi qodobka labaadna waxaanu raali gelin buuxda siinaynaa oo aanu ka raali gelinaynaa nimankii odayaasha ahaa oo halkaa ka hadlay daarood iyo Soomaali iyo dhulbahante waa iyo cid kasta oo dhageysatay waan ka raali gelinaynaa waa waxba kama jiraan cidna ma matelaan niman odayaal oo handikaabaho ceeb kale nagama mudnee maskaxdoodii isbedeshay oo 80 jir oo intooda badan xanuunsanayso caafimaad meesha u joogaan baa la soo ururiyay loo hadlaa la yidhi waxa weeye odayaashana waxaan leenahay hadalkaa ka noqda waad khaldanteen waad gafteen isaaq baa nagala xishooday iyadoo dhiigga yagii yaallo oo dhaawac yagii yaallo oo gabdhaha yagii jeerasha ku xidhan yihiin isaaq baa raalli ahaada nagala xishooday markaasay iyagu waxay isla soo taageen raalli gelin iyo gobol nabadeed baanu fidinaynaa bay isla soo taageen waxaan leenahay intaana waxaan leenahay Soomaali raalli ahaada daaroodow raalli ahaada dhulbahantow raalli ahaada waa falsafada SLM isticmaasho dadka inay ku kala furfurto oo ku midabayso qayb baa naga daba hadli doonta qayb xashiisha baa inta la ururiyo baa kacdoonka dadka laga daba hadalsiin doonaa waa falsafadaha SLM isticmaasho ay dadka ku kala qaybiso oo ku kala furfurto oo haddii ay adeegsato falsafadaha weeye taasna waxaan leeyahay Soomaali iyo daaroodba waa waxba kama jiraan noo hiiliya waxaanu u baahannahay gurmad diyaar baanu nahay waanu iska celinaynaa SLM iyo jamhadda soo duushay taana intaasaan leenahay ta kale oo aan leenahay aan Soomaali leenahay Soomaali waxaan leenahay oo waliba Xasan Sheekh waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo baarlamaanka hadda dadkani 30 sano ilaa Ingiriis ilaa haddii alla idinkeeda leeyahay ay Talyaani 100 sano iyo ka hor calanka buluugga bay u dhimanayeen oo lagu leynayay cid warina ma aanan helin nafsi baxayagii waxaan leenahay dowladda federaalka baarlamaanka golaha wasiirada dhammaantood waxaan leenahay war ka hadla ama dadka waxaa tiraahaa calanka buluugga ah idinma baahnee u dhinto oo la idinku laayo ama ka hadlo ka falceliya waxa weeye dadka waxaa lagu leeyay calanka buluugga هذا الأمر إن عنده أنا هذا القصيد الذي يوصلين أما ميكروفون كما كان هذا من رياشي ويري ورياشي هذين ولا لا هذين وحكى لي إن مقالة ترى إن أمران عقلوا يا أمران إن عيد مضى دقال في الكلام ووحي إلى شيء صلى الله عليه وسلم ووقعوا وحوي يعني هذين على ذكر الخسران حتى هذا الله يقول هذا الحسن كل ما يقول أنا بقول لك يا أفكار قبلها سومالي مرة بنو مصدقين يقيلن في مرة بنو وحنا قبضتين رجع يجي مدحتويا يجا قبضتي كي نورا يجا قبضتي كي ما أنت وحقنا يجا قبضي هراي هالدور كي ولا نقدر مية هذا اللي ما نقدر مية هو عدم كم على كذا جميع نقدر مية يرضى بقول لك مرة منو قال ما إنه أنا كانوا نقاطعياشا وعلاقة كذا نمام كلام نقام داران أمر باكم تاي هو قرعيو نمام كلام نمام كلام
meelaanu joogna haddaanu nahay hadaarood haddaanu nahay meelaanu joogna waa noo dagaal guraanu ugu tegaynaa hargeysaanu ugu tegaynaa oo caynabaanu ugu tegaynaa oo ka hadhi mayno oo jeeralbuu ka biixsaday ka hadhi mayno caloosha wuxuu ka biixsaday oo ku dhaqatay oo ku dhaqaalaystay waa ragga yagii maanta halka waxaa u soo istaagay odayaasha la soo saaray ee family $7 ee qolka lagu xiraystay ee lascaanood la geeyey ee sharafta iyo cirdiga iyo karaamada iyo dadkan sharafta ay leeyihiin meel kaga dhacaya ee qolka lagu xiraystay nama matalaan horta qodobkaas oo soo istaagay qodobka kale oo soo istaagay waxa weeye reer taleexow reer lascaanood dooni nahay waa inoo dagaal nabadayn dooni mayno dadka magaceena ku qanaamanaya eele waxaan doonaynaa nabadayn nama matalaan namana matali doonaan rag iyo dumar gabdho iyo inamo hooyo iyo aabe waxaanu diyaar u nahay dagaal lala galo beesha isaaq eesenam annagu ma naqaano wax la dhaho somaliland waxaanu naqaanaa qabiil la dhaho isaaq oo aanu weligayo gumaysan jirnay maantana annagana lama gumaysto laakiin ingiriis waxaanu kala hortagnay waran iyagoo wata dhashiikayaal maantana waxaanu kala hortagnay reer lascaanood iyagoo dhashiika lagu dilayo yaa waxay kala hortageen dhagax reer taleexow innagu waxaan leeyahay fadhiinooma yaalo waynu tagannaa waynaha meesha isugu yimi waxaan leeyahay ama ku fogaadinayaa Somaliland marka aan u galo Muuse Biixi waa u ahaatay Muuse Biixi inuu daaro ama dhulbahante markuu ha ku ogaaday soo daaro u socdo inuu u socdo waa u ahaatay waana u gaadhay laakiin una gaadhi mayso haddii la yeesho dhulbahante waxaan leeyahay hamidooda meel ha ka soo jeesto xaaladda markaan dhulbahante ka gudbo daarood bay maraysa soo waxaad garatay maa dib markaan u noqdo odayada bidhaqaatayaasha xoogaaga lacagta la siiyey gaajooday busaaraddu hayso yaa nina ma betelaan reer barina maba naqaanin reesha barina maba naqaanin maanu naqaana awalna nagama soo yeelin haddana nagama yeedho soo waxaad garateen maa dhulbahante waxaan leeyahay meel kasta ha jiro sool iyo sanaag iyo calan dhulka iska qaada agoomihiinni arka gabdhihiinni arka hooyooyinkiinni arka raggiinni meeshuu yaalla arka wax garabti baa laga laayay aqoon-yahamadii baa laga laayay mutacalimiintii baa laga laayay dakhtariintii baa laga laayay meel walba waa looga soo laabay dumarkii iyo carruurtii baa loo dhacay sheeg baa laga buuxiyey waa la xereeyey mandheeraa la geeyey shiikh baa lagu ragay daroor in laga daadiyaanu ognahay daroor in laga daadiyo oo shiikh laga daadiyo iska hore intii laga qaaday baanu ognahay iyana bariis bay doonteen bariis gaaja haysa soo waxaad garatay maaha gabdhaha inay baytari ku gureen ee la geeyo togdheer baanu ognahay inay togdheer gabdhihii la wada tageen baanu ognahay agoonihii ooyayey ee muuse naabayey ee lahaa aabbahayo meeye xaggee ku noolaa ee gaajadu haysay tuuracaadka lagu koriyey inay laayaan oo beeba u rakibeen reer taleewa reer sool iyo sanaag waxaan leeyahay dhiidhiya oo dhiig yeesha oo dhexda suunka ku xirta oo iska celiya Muuse Biixi gabdhaha reer taleex waxaan leeyahay Somaliland waa noo dagaal inta gabadha wiilkii naga nool yahay isaaq heshiisna la geli mayno mana rabno dooni mayno Somaliland waa dawaco ragayadu waa dawaco xerada u gasho kale nagu noqdeen ragayadu way inta qalanayaan gabdhaha yadu way laayeen ardada yadu way laayeen waa naxasuuqeen ma rabno ma doonayno waa noo dagaal rag iyo dumarba waa noo dagaal rag iyo dumarba haddaan naga haray isaaq Somaliland ma rabno dooni mayno waxa hadlay naba matalaan waxa hadlay naba matalaan waa noo dagaal Somaliland ma rabno mana doonayno waanuna iska saarana haddaan ma naga haray hadduusan naga haran dayn mayno dagaalka iyo mudaharaadka joojin mayno odayadu xariir iyo dhakhtar bay eegeen waa la afgoobay waxna saxiya rabbuka iyo wixii jira rabbuka labadooda u qasooy waa rag jirana haruusanaya ninka ninka warkiisa qaadayana sababka dhisa
ولا يلا بقولي وهم مسريا إلى ما يجي على المريض ولا يجي على أبوكان بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idinka waxaan u taagnay gobonimada dhulbahanta iyo gobonimada Soomaaliya waxa weeye in qoys yar oo maxaan ku yiraahdaa inuu gumaysto ay saaqi waa khalad waanu diidanahay rag iyo dumar waxaanu ka caroonay dhibicda u taaganahay odayaasha biirqaataha dhamaantayo oo wada maskaxiyanka waxa weeye Allahumma salli ala Muhammad waxa weeye anagu waan taagnay rag iyo dumar haadaaraadna guula ma geeri baan taagnay bismillahir rahmanir rahim wareer taleexow cuniyo cibiyaad rabtaan wareer taleexow cuniyo cibiyaad rabtaan maya wareer taleexow cuniyo cibiyaad rabtaan miyaydan ka cadhoonin guryaheena cadowgu galay miyaydan ka cadhoonin guryaheena cadowgu galay miyaydan ka cadhoon carruurta la laynaya miyaydan ka cadhoon cuqaysh iyo wadaadadii miyaydan ka cadhoonin hooyooyin ciilugaan inayda caloomano wax nooma gelin wuxuu gaadayo gabdhaho miyaydin garan inaan siino nimanku gaan ku yahay inaan dahabkeena geyno gaan ku yahay inaan lacag soo buraabu gaan ku yahay ushayran gaadho urgu gaan ku yahay inkastoo gugayguna yaryahay gabarna waan hay gudnimada anaa diiday oo gobonimaan doortay wax badan baa xiniin galabsadiyo jeelka guradiisa guwaabo badan baan diray gacalkay u toosay galabtana waxaan taaganahay guusha gacalkeeda rag badan baa markay gaabanayd geesi lalahay rag badan baan garaadkii lahayn aarka gacantiisa guwaabo iyo hadal rag baa noogu dhiblayn jiray maanta garkii taagantahay gaabis baa jiray nimayaa go'aan qaato oo laba u kala guura ama gaasi aan libiqsan oo geliyo baaruudda ama waan ka gaabsanay ladhaha waanu idin garanay labadaa gadi aan ahayn garacyo weeyaan ragga gooska hagaya isaaq galaya hoostooda gaaliyo islaam waxaad tihiin maanu kala garanay idinkuna go'aan qaato oo laba u kala guura ama taa gudnimo qaato oo waad gumowdeen ama gacalka soo raaco hawsha lala